السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أخيار قيمها بدن برتاني جلس سعطة aad baad ugu mahadsantihiin saad markasta ula socotaan muuqaalada aan ka soo duubo gudaha caasimadda Hargeysa fadlan muuqaalka la gare suu dad badan u gaadho isla markaana la share gare akhyaarta kale halkan aynu soo ka hormarayna waa Brar Hotel waa hotelkii caanka ah ee Brar Hotel waxaynu soo qaadnay wadadii weyneyd ee dhowrka ahayd ay sii hormarisay madaxtooyada dhankaas iyo ka imanaysay galbeedka hotelka xagga bidix ka soo muuqda waxa weeye Guuleed Hotel isaguna waa hotel kale oo caan ah oo lagu qabto aroosyada xafladaha shirarka carwooyinka isla markaasna leh qaybo kale oo dadweynaha u furan oo ay ka shaahayaan sidoo kale waxyaabaha ay u baahan yihiin cuntooyinka iyo sharaabka ay ka helaan saaka waxaynu maraynaa wadadan weyn ee ka imanaysa dhanka galbeedka xagga iyo centerka magaaladana u socota run ahaantii waa wado aad u ballaaran oo aad u tayeysan inkastoo waxoogaa ciidi ay ka muuqato ay daadadkii iyo baabuurtan iyo waxaan ay ciidda keenayaan waana sad arkaysaan waxa maraa baabuurta basaska ee u kala socda bari iyo galbeed marka waxaynu eegi doonaa bal wadadan halkayna la gaadho baan socon doonaa inagoo insha Allah waqtiga ka faa'iideysan doonaa dhankan waxay naga xiga garoonkii dhalinta oo isagana insha Allah ku qaban doono markaynu hormarayno xagga kamarada waxa ku yaala wadadan horta waxay ka tirsan tahay qaybtan wuxuu ka tirsan tahay degmada Ibrahim Koodbuur bay ka tirsan tahay waxaana ku yaala meherado ganacsiyo aad u fara badan hadda waxaanu ku qabanay garoonkii dhalinta oo gidaarkiisa xayeysiisyo kala duwan lagu sawirtay waa garoon caan ah oo ay ku ciyaaraan dhalinyaradu kubadda cagta oo gelinka dambe iyo subaxiiba waa lagu ciyaaraa sidoo kale waa lagu ordaa wadooyinka wadadan meheradaha ugu badan ee ku yaala waxay u badan yihiin isbeed baartiyo qalabka baabuurta iyo sidoo kale waxyaabahan tiknoolajiyada accessorieska moobilada iyo waxyaabaha loo isticmaalo wadadani waa wado aad u muhiim ah oo halbowle ah isu socodka dhanka galbeed iyo dhanka bari waxaana sidoo kale ka garoonkii hadda aynu ku qabanay albaabkii laga geliyay waa garoonkii dhalinta waxaana xaggan midig kaga dhigsan oo ku yaala oo hordegay banjarle oo baabuurtii waxaas taayirada iyo waxaas u naqasiya sidoo kale baabuurta uu bartan gaadhigu kaga banjiro oo hagaajiya halka haddayna soo eegaysaa waa xaruntii WHO-da hay'adda caafimaadka adduunka ayaa degan oo wadada ay ku soo jeedaa wadada saad arkaysaan waa wado aad u mashquul badan oo inta badan ay baabuurtaasi maraan waxaana aan ku arkay wadadan oo aan lahayn oo u baahan in loo sameeyo meelihii ay dadweynuhu ka talaabayeen zebra crosska ama liidadkii cadcadda ee dadku tilmaamayay inay bartan dadku ay ka talaabayaan baabuurtuna waxay ku socdaan xawaare aad u badan bay ku socdaan inta badanna darwallada caasimadda Hargeysa intooda badan ma taxadir badna waxaan u badan yihiin baabuurta yaryar raaxada ama baabuurta yaryar lagu shaqaysto qaar xoog ku socda xataa wadooyinka kale xaafadaha dhexmara hadda wadadii baynu ka talownay anigoo aad isaga ilaalinaya baabuurta xawaare badan ay ku socdeen waayo wadadan waa wado marka laga soo baxo suuqa baabuur kasta wuxuu ku soo dhaqaaqaa speed aad u badan buu ku soo dhaqaaqaa isagoo doonaya bartu doonayo inuu waqti yar ku tago laakiin ay qalad tahay waxaana sidoo kale aan la xadidin xawaaraha wadadan lagu soconayo ma xadidna ma 20 kilomitir per hour kiiba ma 40 ma 10 lama garan karo lama sheegin gaari kasta speed ku doono isaga socda laakiin waa magaalo bartankeed iskuulaha ku dhow waxa ku dhow xaafadaha ku dhow oo xagga dambe inaga xiga oo ka talaabaya marka waa in speedka la xadido sidoo kalena loo sameeyo meelihii dadweynuhu ay ka talaabayeen horta nasiib wanaag wadadu waxay leedahay dhinacii dadweynuhu ay marayeen inkastoo ay ciida tahay oo waa wado weyn oo aad u ballaaran oo waafiya dhismayaashan ku soo jeeda hadda sawir baan si la yaqaan wadada ka qaadayla dhismayaashan ku soo jeeda la ameeduna laftarkoodana waxay leeyihiin baarkin aad u fiican
oo waddada may soo gelin oo waddada markii hore si fiican loo habeeyey. meheradaas waxaa la yidhaahdaa creams baa la yidhaahdaa. waxaa lagu sameeyaa iskriinka iyo waxyaabahaas qabowga macmacaanka baa lagu sameeyaa. creams baa la yidhaha mudday ku taalay intaan arkayey waana meherad dad badan ay ku xidhan yihiin. waxaynu ku sii dhownahay hadda oo aynu wax yar kadib gaari doonaa iskuiskii waddadanoo toos u baxaysa. sidoo kalena dhanka midig waddo kale oo ay leexanayso dhanka jigjigeer ay qabanayso. jaamacaddii gulis baynu hadda hormaraynaa. waa jaamacaddii gulis qaybtii injineerinka si aan rajeynayo ardayda injineerinka qaybtan kambaskan wax ku barta. kambas kalena waxay ku leedahay xagga iyo shacab area meelaha dhexe. markaa daawadayaal bal waxaad noo sheegtaa waddadan de kolley wax badan oo intaan maray aan soo sheegay baa jira oo waddada ka maqan. dowladda hoosena waxaa muhiima inay talooyinka qaadato oo wixii waddooyinku ay u baahan yihiin loo sameeyo. ciiddaasna in laga xaadho waddada waayo ciiddaasi way burburinaysaa waddada waanay qarinaysaa biyahana ciiddugo qabanaysaa oo haddii biyo yar ay soo da-aan way u qabanaysaa. marka hadda hoteelkii summer time baynu dhinac maraynaa. waa hoteelka cas aynu soo dhaafnay. mool baa inaga horeeya qaalib business center la yidhaahdo. waa dhismahan weyne dhanka bidixiga. waad arkaysaan baabuurta siday xawaaro ugu socdaan. baabuur kasta intuu doono ayuu ku soconayaa. dadkuna waa kuwa iska taltallaabaya waddada ka dhex maraya. waana khatar aada u ballaadhan run ahaantii. oo baabuurteennu markay helaan waddo yar oo waafiya oo fiican oo bilaa gudida darawal kasta wuxuu u ciil qabaa baan isiri inuu baabuurka speed ku dhaqaajiyo. markaana de khatar u geysan karaa markay magaalo gudaheed tahay oo speedkana speed badan uu gaadhigu ku socdo. waa inagaa soo gaadhnay dhismahan idiin sheegayey. waa mool yar waxaa la yidhahdaa qaalib business center baa la yidhaahdaa. meherado badan baa meherada cookies time la yidhaahdo ayaa ku taala. amal artist waxyaabo badan xataa meherado badan oo dharka iibiya ayaa gudaheeda ku yaala. waa mool la furay. waxaan filaya inuu 2 sano meelahaas u furnaa. dhismaha inaga horeeya weyna waa degelsame fooqaas waa hotel iyo cafeteria ayaa degan. waa hotel dhowaan sanadkii hore la furay oo aada u qurux badan. dhanka midig meesha qudradda lagu iibiyo ayaa iyadana bartaa ku taala oo ah meel qudraddeedu nadiif tahay. dhowr cisho ayan muusi wax ka iibsadiyey tufaaxyo. waa meherad adeegeedu aada u fiican yahay. marka daawadayaal intaas baynu kusoo gebagabaynaynaa muuqaalka. fadlan haddii aad meelahan aad talooyin iyo xasuus aad noogu reebi karto kommentiyada noogu reeb. akhyaartana la sheergare muuqaalkana sidoo kale laygare. aad baad ugu mahadsan tahay. fii amaan illaah.